Soo dhawaada, waxa aan idinla wadaagi doonaa xog uu bixiyay xoghayihii gaarka ahaa ee madaxweyne Siyaad Barre laguna magacaabi jiray Maxamed Gacmay Aadan Cali. Waxaan ka soo akhriyay buugga aan sheego warsheelana idinka ayaana aan idin deynayaa qiimeynta dhab ahaanshaha xogtan. Sidan ayaana uu Gacmay ku bilaabayaa. Marka aan waraaqaha madaxweynaha u geynayo, waxaan samayn jiray kala soocid. Waxaan ogaaday in uusan jeclayn in aan la joogo marka uu boostada ka shaqeynayo. Inta badan waxa uu xafiiska shaqadiisa qaban jiray saqda dhexe marka ay cid kasta seexato. Shaki ayaa igu abuurmay. Waxaan garan waayay waxa madaxweynuhu uu qarsanayo. Waxaan ku tashaday in aan xafiiska joogo tan iyo saqda dhexe si aan madaxweynaha ula joogo marka uu go'aaminayo wixii waraaqo cusub u yimi. Markuu arkay in aan danaynayo ka warhaynta shaqada xafiiska, ayuu inta uu igala xishooday in uu iska tag yiraahdo tabti bedelay oo bilaabay in uu waraaqaha kala sooco oo qaar ka mid ah horteeda ku gudoomiyo, qaar kalena meel dhigto si uu hodhow markaan ka tago uga shaqeeyo. Waxa igu sii weynaaday wixii aan horay u qabay, taasoo ahayd in wax uun layga qarinayo. Tuhunkii aan awalba qabay waa uu igu sii siyaaday. Waxaan ku dhaqaaqay in aan u dabagalo bal nooca ay yihiin waraaqaha go'aankooda layga qarinayo. Kaaga daran ee waraaqihii layga ilaalinayay in aan go'aamintooda goobjoog ka ahaado, gacantayda soo galayeen iyaga oo go'aankoodii uu ku dul qoran yahay. Su'aal baan isweydiiyey, taas oo ahayd, haddiiba go'aanku kolley ku soo mari doono, muxuu macallinkaagu kaaga qarinayaa? Waxaan ku dhaqaaqay in aan bal u dabagalo waxa madaxweynuhu sameeyo marka uu waraaqaha khaaska ah go'aaminayo. Waxaan ugu dambeyntii ogaaday in uu haysto liis gaar ah oo khaanada ugu jira oo uu ka shidaal qaato marka uu arrimaha qaarkood go'aaminayo. Liiskaas waxa uu ku qoran yahay af Soomaali gacan ku qor ah, waxaana uu ku dul dhegan yahay loox khafiif ah, wuxuuna ku qufulan yahay khaanadiisa, furuhuna suun dhabarku ugu xidhan yahay. Waxaan ogaaday in uu isa soo hordhigo marka uu go'aamada qadhaadh gaadhayo. Waxaan go'aansaday in aan liiskaas gacanta ku dhigo, laakiin way igu adkaatay. Maxaa yeelay sidaan horeba u soo sheegay, khaanadu ugu jira, furuhuna suunka ayuu ugu xidhan yahay. Maxamed Siyaad waxa uu ahaa nin ku soo barbaaray shaqada sirdoonka, sidaas darteed wuxuu ahaa nin si gaar ah ugu dhegan sirta qaranka iyo dukumeentiga. Xafiiskii waxaa layga bedelay anigoo oon weli ku guuleysan in aan liiskaas helo, laakiin weli kama niyad jabin in aan helo. Xaalku waa uu ka culus yahay siduu ahaa markii aan xafiiska madaxweynaha ka shaqeynayay. Haddii hadda laygu helo inaan liiskaas daba socdo, waxaa laygu qaadayaa jaajuus shisheeyaha u adeegaya oo dukumeentiga sirta ah daba socda. War iyo dhammaantiis, waxaa liiskii gacantayda uu soo galay habeen aan dadka Soomaaliyeed intooda badani faraxsanayn. Waa habeenkii odaygu uu soo dhaawacmay. Waa yaabkiisa waxaan liiskii ka helay halkudhigyo aan weligay maqli jiray, kuwaas oo kala ahaa: Soomaaliya Soomaali baa leh, gaajo gunnimo leh iyo gunnimo dhereg leh, dagaal wiil ayaa ku dhintee wiil kuma dhasho, hadal